السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سيتين عافمادكين وفيعتين وإذن سودوينا يا دمانتي إن شاء الله عاد بني إذن وذا السلام يا إن شاء الله والله أدمنك dadka hawsha haya walaaliyaal aad baa idin salaamay aad iyo aad baad u mahadsantihiin caawimaada dadka walaalihiina aad u caawinaysaan ilaahay ajir allah idinka siiyo dadkiina ee whatsappka ku jira oo walaalahood iyagana maxaa yidhaahdaa la daadihinaya insha allah idinkana saas oo kale ilaah baa ajar idinka siinaya insha qof walba dhaxsaan u subis ilaah baa adiga ajar kaa siina saa ogaal marka waxaan rabaa halkan in aan dhammaan waa idin soo wada dhaweynaya dadka cusub aad baa idin soo dhaweynaya haddaad nagu cusba subscribe ka saar haddaad u baahan tahay casharka inuu kuu soo dhaco markuu uu soo gaaro insha allah beelka haddaad taabto casharka wuu kugu soo hormarayaa laakiin haddaad beel ku taabnayn casharka waxaa laga yaabaa inuu kusooba gaarin markasta marka walaalayaal waxaan kaloo aan rabaa in aan idin xasuusiyo dadka whatsappka ku jira casharada aan dhigayo qof walba ayuu u furan yahay soomaali kaliya uma furnaa qof walba u furan yahay marka waxaan rabaa dadkiina whatsapp ku jira in saa u ogaataan in casharada aan diyaariyey qof walboo maanta ka faa'iidaysan kara ayay u furan yihiin marka insha allah saa u ogaada insha allah marka caawa casharka waa cashar muhiim waxaa idinla hadsa waa walaashin amiira casharka cashar muhiim wayaan caawa qof walba u baahan yahay insha allah waana cashar laga soo codsada insha allah marka aynu bilaawan haddii alla yirahdo ilahay inoo saamaxo conversation muhiim ah english af somali la isku dara maanta ujeedan ala kulli xaal okay how to make an appointment appointment okay d waxaan ka wadaa meesha daktarka ama receptionka qofkii markaa meesha fadhida receptionka just d waxaan ka wadaa qofkii oo ballanta dhiganayo can I help you yes I want to make an appointment please yes I want to make an appointment please What seems the problem? I've been sick for the last 2 days. I've means this I have. Why contraction? I've been sick for the last 2 days. I've been sick for the last 2 days. Okay, D waxay dhahaysaa I have openings on Friday or Monday at 2 p.m. Which would be best for you? I have opening on Friday or Monday at 2 p.m. Which would be best for you? I'll come on Monday. What is your name? My name is Sirat. Please come to 10 minutes early to fill out new patient forms. Please come to 10 minutes early to fill out new patient form. Okay. Do you need direction to our office? No, I know where it is. Okay, so I will see you on Monday at 2 p.m. Okay, so I will see you on Monday at 2 p.m. Thanks. You are welcome. Have a nice day. Well, have a nice day. You too. Conversation muhiima. Sheekaysi muhiim ah. How to make an appointment. Sida loo suubiyo ballan. Appointment waa ballan. How to make an appointment si ballan loo subsado. Okay, DNA ayaa hadlaya. D waxa waaye reception oo clerk saa dhahdiin qofka meeshaas fadhiya oo dhakhtarka ee ballanka u suubinayo ma fahmin inta dhakhtarka laakiin qofku arkaa insha Allah. Waxay dhahaysaa markaa waa can I help you or may I help you askume. Can I help you? Sometimes say how can I help you? Way dhahan also sideen ku caawiyaa
marka sideen kuu caawiya? How can I help you? Sideen waan kuu caawiyaa? Yeah, no, can I help you? Maku caawiya way. Can I help you? Maku caawiya. Sideen kuu caawiya? Soomaali isku mid anyway. Yes, ha. I want to make an appointment, please. Yes, ha. I want waxaan rabaa to make saan u suubiyo an appointment ballan, please. Waxaan rabaa ballan in aan suubsado ayaan doonayaa. So marka qofka meesha wuxuu leeyahay what seems the problem? Problemka maxaa waaye? Sababta qofka markuu kusoo waco dhaqtar aan problem maxaa ku daaray leeyihiin fahmino qofka wuxuu sababta wixii markaas qofku u baahan yahay ay meesha ku qorayaan. What seems the problem? Problemka macnaha waxa ku hayo waa maxay? What seems the problem? Problemka waa maxay? Appointment taas subsanid. Problemka appointment u rabtid waa maxay? marka qaar waxaa dhihi kara full check up aan rabaa body korkeena in la check garay rabaa. mar waxaa dhihi karta xanuun hadduu waa sheegi kartaa mararka qaarkood wax oo dhiig lagaa qaaday oo maxaa la jawaabtiisa resultiga aad doonanaysa marka qofku waa inaad u sheegtaa ma fahantay marka qofkan hadlay wuxuu leeyahay I've been sick for the last 2 days. That means I've been sick waan xanuunsanaa for the last 2 days. labadii maalmood ugu dambeeyay waan xanuunsanaa. I've been sick. That means waan xanuunsanaa for the last 2 days. labadii maalmood ugu dambeysay xanuun bay ahay weeyaan. mar halkan I have openings. waxaan haya macaan openings. That means ballanta marka la suubinayo mararka qaarkood waxaa saacadaha qaarkood macnaha qofna ballan ma laha oo way bannaan tahay fahmi I have an open means waxaan hayaa boos furan booska waxa waqtiga furan waa maxay on Friday jimcaha ama isniinta Friday or ama isniinta at 2 p.m. marka waxaan hayaa macna opening macna space meel furan macna waqti furan oo aan ku helayo ama jimcaha ama isniinta ayaa waxaan ku helayaa 2 p.m. 2 p.m. waxa weeyaan duurkii marka la dhaafo adiga nuunka wixii ka dambeey 2 p.m. ma gaste which would be best for you macnaha labadaani keebaa adigu kuu fiican which would be best for you macnaha labadan Friday jimcaha iyo isniinta kee kuu fiican adiga ayaa loo which one waa kee would be kuu best for you adiga kuu fiican keebaa adiga kuu fiican labadan time lagu sheegay ama jimcaha ama isniinta keebaa kuu fiican marka wuxuu leeyahay I'll come on Monday waxaan imaanayaa isniinta baa iman this one I will so I'll come on Monday marka waxa waa isniinta ayaan imanayaa marka waxaa leeyahay what's your name magacaaga waa maxay leedahay my name is Siraad magacayga waxaa la dhahaa Siraad baa la dhahaa marka waxay leedahay please come macnaha please come fadlan imaaw 10 minutes 10 daqiiqo early oo macnaha 10 daqiiqo ka hor imaaw to fill out sida u buuxiso new patient form macnaha qofka cusub oo waxa qaadanay patient waxaa laga wadaa qofka dhakhtarka arkay form cusub ayuu buuxiyaa form macnaha dadka qofka cusub oo dhakhtarka markii ugu horeysa arkay form ayaa la siiyaa aan fahmo formkaas la dhahaa patient form patient waxa weeye dhakhtarka qofka uu arkaayo oo in la daaweeyo wax patient adiga patientka fahmino adiga patient qofka dhakhtarka arkay adiga patientka in Soomaali ka saacada kuma xasuusto warileys ma gaadino laakiin qofka dhakhtarka arkay patient weeyaan qofka fahad so new macnaha waa cusub that means qofka ku marka dhakhtarka aad ku cusub tahay form lagu siinaya aad buuxinaysa addresskaaga da'daada gabadh haddaa tahay wiil haddaa tahay waxaa tahay informationka ku buuxinaysa marka waxaa lagu leeyahay 10 daqiiqo ka soo hormaro saa u buuxiso formka dadka cusub la siiisa u buuxisid 10 daqiiqo soo hormar baa la yiri marka halkan waxay dhahdaan okay waa yahay halkan waxay leedahay do you need directions to our office ma u baahan tahay in lagu tilmaamo to our office xafiiskeena tilmaamo ma u baahan tahay macnaha waxaa laga wadaa xafiiska meel ku yaalo qofka dugar waad u tilmaamaysaa mogta marka waxaa la weydiinayaa tilmaamo ma rabtaa meesha anaga xafiis ku yaalo ma lagu tilmaamaya oo ma rabtaa marka wuxuu leeyahay no maya I know where it is maya I know means waan garanayaa where it is meeshuu ku yaalo I know where it is ereygan waa I know kaydan waa silent lama akhriyo waa I know
where it is. meeshuu ku yaalo waan garanayaa. meeshuu ku yaalo waan garanaya. maxaa laga meeshuu ku yaalo waan garan markuu dhaho means meesha macnaha direction in la siiyo uma baahno oo xafiiska wuu ka siiyaa afkan. marka waxay leedahay okay. Oh, this is in a D كليات B كلية على كل حال أفهم يسحن كذا. Okay, so okay معناه okay so معناه سيدا درادد معناه I'll see you on Monday at 2 p.m. ما دام عاد كسيسي okay واي هاي so مركز درادد معناه أنا أدي معناه وحس أركين I'll see you وحنكو أركيا on Monday at 2 p.m. so Monday at 2 p.m. وإنوتها معناه ما دام أكسيسي waxay inoo tahay ama aad imaanaysaan ku arkaya 2 p.m. on macnaha maalintaas so I will see you waxaan ku arkayaa macnaha sidaa aawadeed baan okay maadaama aad garanaysid macnaha okay waa yahay ama ha so sidaa aawadeed I will see you ma fahmino on Monday at 2 p.m. waxaan ku arkayaa on Monday 2 p.m. thanks mahadsanid you are welcome adiga ayaa mudan have a nice day waa maalinta ha kuu macaato ama maalinta ha kuu fiicnaato you too adigana saas oo kale marka insha allah casharka cashar aad culus ma waa cashar aad yar laakiin cashar muhiim waa insha allah marka walaalayaal khayr baa idin rajaynayaa casharkii waa ka haddaad fahmo kusoo ceshta insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu